واتهاي دعوضها حيق حولها الشيخ حاس كيغا ayaa maalin gadaal uga tagay markaas kadib uur bay yeelatay marka ilmahaasi muxuu noqonayaa tan kale hadii ay iga furan tahay see u socoshan karaa bismillaahir rahmaanir rahiim Allah tabaaraka wa ta'ala quraanka kariimka wuxuu ku yiri markuu ka hadlayay dumarka iyo ragga isqaba muaamalada sariirta ku dhaxmarta wuxuu rabbi yiri tabaaraka wa ta'ala fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah dumarku markay dahaara qaataan oo ka qabaystaan dhiigii caadada Allah wuxuu yiri tabaaraka wa ta'ala u taga laakiin meeshii Ilaahay idin amray min haythu amarakum Allah meeshii Ilaahay idin amray oo meesha muxuu ahay xubinka loogu talagalay halkaas Rabbi tabaaraka wa ta'ala ku amray in xaajada lagu guto bimaana wixii ka gadisan iyo meel kale lama ogolo waay saas daraadeed baa xadiista nabigeenu sallallahu alayhi wasallam aad arinta u adkayso nabigu waa reebay salawaatu rabbi wasallam alayhi dumarka muxuu ahay maxaashida iyo meesha saxarada iyo in looga galmoodo waa diiday nabigu salawaatu rabbi wasallam alayhi bal lacnad baa ku soo aroortay waxay kamid tahay dambiyada waaweyn oo Ilaahay laga galo tabaaraka wa ta'ala mid kamid ah ha ahaato waa dambi weyn oo toobad u baahan marka hore in la iska ilaaliyo u baahan haweentu inay ninkeeda ka ogolaato ma ah inay ku diido oo hadii muxuu ahay damcaasi gal ayna ka ogolaanin laakiin haday dhacdo oo shaydaan ka shaqeeyo markaasi haweentii ma furmayso muxuu ahay waxyaalaha furitaanku ku yimaada kamid ma furitaanku wuxuu ku yimaada ama ninku inuu reer ka furo ama maxkamadii ka furto ama dalqadaha wax ku badasho furitaanadu saasay ku yimaadaan laakiin ficil nooc ama uu ridoobo diinta ka baxo laakiin muxuu ahay haweentii qaab khaldan ugu tagay furitaanku ma yimaado ilmaha uur galayna waa ilmo sharciya xarigiina wali waa jira waa isqabaan inuu soo ceshadiyo inuu guursadana dib uma baahna maxaa yeelay kii hore jira laakiin khalad buu galay oo dambi buu galay toobad u baahan Ilaahay u soo noqdo arintana wixii hadda ka dambeeya iska ilaaliyo wallahu a'lam waxay diintu ka qabtaa sidaysadii maxaa ka dhigahay ninku xaaskiisa galaada dooga tago alxamdulillah arrinkaas ma banaana waana muharram waana malcuun weeye qofka saas sameeyaa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri malcuunun man ataa imra'atan fi duburiha waa lacnadayahay qofkii haweenay gadaal taga ama gadaal isticmaala waa wixii lagu halaagay qowmuluud arrinkaas waa mushkilad jirta oo waxaan ma waxay soo ardiyeen طبعا qadaayada kana maaha meesha maxfalka laakiin waa qadiyad jirta oo caam noqotay hadda oo badatay oo su'aalaheedu si badan loogu yimaadaan ama Facebook ama email ka gabdho badan ay ka shaqeynayaan gabdho badanna ay ka xishoodaan inay soo darxiyaan ama ay keenaan oo ay dadka weydiiyaan aad bay uga xishoodaan laakiin wax jira bal qadaayada ay ugu timaadaa culimada oo lagu kala saaray project waxa ka siiyaa badan inay gabdho ka dhacdo laftigeeda oo ay tiraahdo ilaa ninku waa inuu saas sameeyaa iyana waa dhacdaa yaabaato labaduba waa arrinkaasu waxa weeye ala kulli xaal arrin dambiya weeye ninkana laguma waafaqi karo gabadhuna haddii ku waafaqdo dambiga qayb bay ka qaadanaysaa isaguna dambigaas weyn buu leeyahay waa in arrinka dadka muslimiinta waa joogaan wallahu a'lam تكبير الله أكبر الله أكبر شيخيga laga su'aalood bay ahaayeen la soo dirsaday laakiin waa isu ka raacinaya maadaama ay isu dhow yihiin sheekhiga waxay su'aasha koobaad leedahay ninkaygu wuxuu aad u jecel yahay aadna uga dambeeyaa aadna u rabaa in uu dhankii la iska isticmaali jiray gogosha mooye inuu dhanka kale isticmaalo xaaladaasna sheekh aad bay ii dhabaysaa wayna haysataa dabcan waa waxayba isticmaalaanba marka sheekhaygu maxay diintu ka qabtaa digniin intee leeg baad ka bixinaysaa waa xaalad aadna u adag oo qurbaha naga soo raacday iyo aflaantan aadka ugu badan sheekhayga su-aasha kalena way la socotaa waxay leedahay su-aashan kale xilliga aan caadada qabo aan cibaadadii xitaa aana salaadii iyo waxyaabaha aan samaynaynin odaygaygu wuxuu igu qasbaa in uu arrinta gogosha guto sheekhayga gabdho fara badan ayaa
ka wada cabaadaya qurbaha u badnaadeen sheekh axmed nuur soo dhow haddii aad fahantay ilaahi subxaana watacaala ha ku barakeeyo. haddaba walaalayaal waxaa laga hadlayaa waa masaa'il maanta runtii saaxada ku soo badatay, waa waxyaabo dadka haysta, waa masaa'il gabdhuhu wax badan ay kusoo weydiinayaan iyagoo runtii la xishoonaya, iyagoo qaarkood ay la ooyayaan, iyagoo qaarkood ay la ilmaynayaan inay raggii ku fidnoobeen waxyaabaha qaar oo ah ay ku arkeen ummadahan aan muslimiinta ahayn oo haweenaydii oo xagga dambe la rabo in wax laga raadiyo. subxaan allah, xagga dambe in wax laga raadiyo, galmo inay xagga dambe ka dhacdo, xubinkii taranka ee loogu talagalay rabbi ugu talagalay in la gara maro. waxaa kaloo iyadoona la socota su-aasha qaybta kale oo ah inuu xilliga gabadho xaa'idada ay tahay ee daahirkaba inay caadada ay leedahay ay raggii qaar xilligaa danaynayaan oy jecel yihiin. marka arrintaas marka la fiiriyo laba qodob baynu u kala qaadaynaa. mid waa sharcigeenna xaniifka waxyaabaha uu ka qabayo meesha laga istaagay, midna waa caafimaad ahaan iyo dhakhaatiir ahaan waxa ka iman kara arrintaa iyada ah. sharci ahaan waa laba masalo oo labaduba xaaraan oon bannaanayn, xaaraannimadooda haba sii kala weynaato oo midi ay ahaato kabiira min alkabaa'ir. xadiidka rasuulka sala allahu alay wasalam abu daawud iyo kayrka ay wariyeen sheekh alalbaani ee saxiixiyey, rasuulku wuxuu ahaa sala allahu calayhi waaalih wasalam man ataa xaa'idan, yacnii qofkii u taga haweenay xaa'ida oon daahir ahayn, ow imra'atan fii duburiha ama haweenay xagga dambe uga taga, ow u taga kaahin qofka dadkan faalalowga ahee wax sheegsheega u taga, faqad kafara bimaa unzila calaa muxamed sala allahu alay wasalam. nabiyullaahi maxamed diintii lagu soo dejiyey wuu ku gaaloobay qofkaas. kufriga culimmadu way ka hadlaan, waa kufrun duuna kufrin, taqriiban kufrigii weynaa oo islaamnimada ka saaraya ma ah, laakiin waa dembi weyn oo khaliida oo la rabo in qofkii laga cararsiiyo. malcuunun man ataa imra'atan fii duburiha, yacnii lacnad ha ku dhacda baa la yidhi qofkii gadaalka uga taga. gadaal uga taga haddii laga wado, dadka qaar ay ka wadaan inuu xagga dambe ninku ka yimaado isagoo xubinkii taranka oo xagga hore ahaa uu isticmaalku ka dhacaya galmadu, taasi sharciyan wax dhibaataa ma leh. nisaa'ukum xarthun lakum faatuu xarthakum annaa shi'tum weeye, oo mufasiriintii hore xitaa ay ku fasireen min iqbaalin wa idbaarin wa qiyaamin wa qucuudin, sii jeed iyo soo jeed iyo fadhi iyo taagni iyo midkuu raba ninku ha uga yimaado, marba hadduu yahay meesha galmadu xubinkii loogu talagalay. laakiin midda aan ka hadlayna taa way ka duwan tahay, waa iyadoo xagga dambe la rabo in wax laga raadsado ciyaadan billaah, oo ah meesha ay wasakhda iyo saxarada iyo xumaantu ka timaado, halkaa inuu ninkii rabo inuu maro uu wax ka raadiyo. arrintaasi sharciyan waa xaaraam, waa kufrin kaa laga warramay xadiidku, walow uu yahay kufri ka sokeeya kii diinta looga baxayay, waa dembi kabiiro aad iyo aad u weyn weeye. waa waxa lacnad loogu goodiyey saaxiibkii qofka samaynaya. qofka isaguna xaa'idada u tago gabadhii oo xayd lana, iyadana waa sidaasoo kaleo lacnadaas iyo dembigaas aan ku sheegnay buu la mid yahay. xili loogu talagalay oo la rabana ma ah in la isticmaalkaas isagii uu dhaco. diinteennu waa diin xaniifa, waa diin wasad ah, waa diin u dhaxaysa yahuudiyada iyo nasraaniyada bay u dhaxaysaa. oo yahuuddu waagii hore waxay samayn jireen in ay haweenayda xaa'idada ka fogaadaan, oy ka cararaan, oyna guri la seexanin, oyna cunto la cunin, oo kala karantiilo ayay ahayd. qolada nasaarada ama kiristiyaankuna iyagu waxay yaqaanaan haweenaydu hadday xaa'ido tahay, hadday dhiig leedahay, haddayna lahaynba isagu midba iyaga u tahay, oo say markii hore ahayd bay marka dambena ula isticmaalayaan oo hawsha u dhacaysaa. laakiin islaamkeennu waa wasati, waa diin u dhaxaysa labada, laa sharqiya walaa gharbiya, taasoo macnaheedu ay tahay in haweenayda rasuulka markii loo sheego arrimada ficilkay sameeyaan loo sheegay, uu yidhi rasuulku isnacuu kulla shayin, haweenka markay xaa'idada yihiin wax walba la sameeya ila nikaax, jimaacun baan la rabin inuu dhaco. laakiin haweenaydii way kula seexanaysaa, sariirtii iyo goyi baa lagu wada jiraa, waa qof adiga kula mid ah, waa la taaban karaa, laakiin keliya jimaacun baan dhacaynin. marka intaasay uga duwan tahay. haddaba waxyaabaha adraarta oo ka imaanaysa arrintan hadday dhacdo haweenay xaa'ido ah oo aan daahir ahayn in isticmaal laga raadsada hadday dhacdo,
maxaa dhici karaya? waxaa dhici kara min naaxiya tibiya ama caafimaad. culimmadu waxay ka diyaariyeen dhakhaatiirtu taqaariir tiro badan. waxyaabaha ugu cajo badan ee ka imaan kara waxaa ka mid ah annaziif addamawi, waxa la yidhaahdo dhiig bax. xilligaani xilli loogu talagalay ma aha inuu isticmaal u yimaado. waa ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaa li wayas'aluunaka cani ilmaxiidi qul huwa adan factazilu nnisaa fi lmaxiid. bal u fiirsada labada arrimood ee laysdaba dhigay. waxay ku weydiin baa la yidhi wayas'aluunaka cani ilmaxiid, waxay ku warsanayaan xaydka iyo xilligaa gabadhu ayna daahirka ahayn. waxaad tidhahdaa qul huwa adan ku dhe, waa dhibaato, waa wasakh, looma dhowaan karo, xilligaa lama taaban karo. adan marka macnaha wax weyn baa lagu daboolay oo lama faahfaahinina qul huwa adan, ilaan astur baa la rabaa. dhakhaatiirtaas sii kala faahfaahinayo iyagu sheega. haddana adankii laguma dinin, waxaa la yidhi factazilu nnisaa fi lmaxiid. marka haweenka xilligaa ka fogaada, ha u dhowaanina. intaasaa laysii wada daba dhig. marka xilligaas isagoo saa la isaga loo diiday, waxa ku jira alla og. hadday xilli suuragal tahay laynagama reebeen, sidaana looma adkeeyeen, intaasoo diidmana laysma daba dhigeen. jazaaka allahu khayran. su-aasheenna 150aad masaa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh, haddii aan xaaskayga uga tago xagga dambe miyay iga furmaysaa? horta intaan la gaadhin ma iga furmaysaa? waxaa ka horaysa falka noocaasa maxay diintu ka qabtaa? dhaqankaasi waa dhaqan khaldan, shareecaduna diiday. qur-aankana tabaaraka wa tacala alla wuxuu ku yidhi faidaa tataharna fa'tuuhunna min xaysu amarakum ullah. dumarku markay tahaaro qaataan ooy caadadii ka tahaaro qaataan oo ka qabaystaan, u taga meeshii ilaahay idin amrayna uga tagaa layidhi. waa meeshii xarsiga, waa meesha ilmuhu ka yimaado. axaadiista nebigana sal alla alay wasalam waxaa ku soo aroortay axaadiis fara badan oo caddaynaysa inuu nebigu reebay xaaraanna ay tahay. intaa waxaa ka sii xeel dheer axaadiid hanjabaad iyo waciid adag ku soo arooray baa jira oo uu ka mid yahay xadiidka abu hurayra. nebigu yuhi sal alla alay wasalam malcuunun man ata imra'atahu fii duburiha. ruuxii xaaskiisa xagga dambe uga galmooda lacnad baa ku dhacday, waa lacnadan yahay. xadiidka axmed iyo abu daawuud baa wariyay, waana xadiid saxiix. bayhaqi wuxuu isaguna ku wariyey fi shucab min xadiid abi hurayra. shawaahid kalena wuu leeyahay inuu nebigu yidhi sal lla alay wasalam ninkii reerkiisa iyo xaaskiisa xagga dambe uga galmooda laa yanduru allahu ilayhi yowma alqiyaamah. maalinta qiyaamada ilaahay ma fiiriyo, yacni il naxariiseed laguma dayo. marka waxay ka mid tahay dembiyada waaweyn bay ka mid tahay. qur-aanka iyo sunnaduba siday tilmaamayso, culimmaduna ay isku raacsan yihiin. ayib, taa markaynu garanno, ninkii sameeyey oo khalad ay uga dhacday oo dembigaa galay, xaaskiisii ma ka furantay? waa su-aashu arrintay ku saabsanayd. waa jawaabtu waxa weeye maya. yacni khaladkaa uu ninku galay iyo meeshaa khaladka uu wax ka raadsaday ma keenayso inay xaaskii ka furanto. xadhiggu waa gooni, khaladkuna waa gooni. xadhigga waxa goyn kara ama waa isagu inuu furitaan cad ku dhawaaqo, ama waa inay maxkamadi goyso. laakiin xadhiggu iskama go'o. ama riddo iyo gaalnimo inuu diinta ka baxo oo marka xadhiggu sidaa ku go'o. laakiin khaladaad uu ruuxu galay oo dunuub waaweyn oo uu galay oon gaalnimo gaadhsiisnayn, sideedaba xadhigga iyo caqdiga nikaaxa ma buriso. sidaas daraaddeed ma furmayso, laakiin dembi booyin baad gasho, towbad baa lagaaga baahan yahay. wallahu aclam.